السلام عليكم مدعو سفرست إنا كهلا أروي حياتها سؤاش ugu badan oo isu soo noqnoqtaa waxay ahayd adoo lagu kufsaday oo dhibkaas lagu geystay maxaa u qarisay hadaa idin sheegaya weligii hooyaday waxa dhihi jiraan hooyo gabar kale maxaa iigu dhalibaysay maxaa keligay ii dhashay keligay ina idhishid ma gabar walaalaha u baana waxay dhihi jirtay may adaa kun gabar iiga fiican adaa wax kasta boqorada tahay سين طورت أنا هاي ولا يحرف رعمي بأبودي باين هذا وقت صدق وأمس حنونك أنا أدري ما يحقق لوينا هو يدي متكدرين دون مرقة وشيء مستقبل كينا واي واي وحكستينا يقول واي هذا هاي لا سانو كنتم تابس لا sababta hooyaday markasta way ugu faani jirtay dad badan bay dartay ula soo kala go'day dad badan oo hooyaday heer walba gaari lahayd ani dartay u gaari weys inta u tago sidee ku dhahaa hooy macaan hooyo igraale noqo maaska aragto waa kasoo bixi waay shalay keligay ahay maanta laakiin maanta waxay tusteen wiil kastoo Soomaaliyeed inuu walaalkii yahay hooyaday waxa dhigi jiray hooyo gabar maxaa iigu dhalibaysay laakiin maanta adiga walaal ii noqotay kun gabar inay la dhalatay aaminsanaa hooyaday ma awoodin inaan hortaga aadha hooyo see ku dhaha hooyo nolosheedii gabadhaa ku faani lahayd rajadaada waa khasaartay ما أبودي واي sababta u qariyani sababtaas ay ahayd laakiin ma aamusin oo gabar masaakiin oo jilicsan maana noqonin waa dagaalamay inta dagaalami karo nimankii waa xiray waxa isdhahay waa guuleysatay maanta waa noqon kartaa gabadhii hooyada ay rajaynaysa inaa noqoto laakiin may waa noqon waayo hooy macaan iska kaafi نسبنا روحي حوين نعبو هايستاهي